بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta saxaafadda isugu yeernay inaan si kooban uga warbixino shirar soo bilaabmay 29 bishan oo maalmaha nooga socday magaalada Muqdisho anagoo ah xisbiyada ugu waaweyn ee qaran ee hadda dalka ka jira shirka maanta gabagabadiisii waxaan ku go'aansanay in madal wada jira loo sameeyo xisbiyada waaweyn ee qaranka madashaas oo magaceeda la yiraahdo madasha xisbiyada qaran oo marka af Ingiriis loo soo gaabiyo noqonaysa Forum for National Parties ujeedooyinka ugu waaweyn ee madashaan u sameynay waxa weeye in la helo oo xisbiyada qaran ay ka yeeshaan talo midaysan arrimaha taagan ee qaranka saameynta weyn ku leh oo ay laga wada yeesho talo joogto ah oo lagu saxayo wixii qalloocda laguna taageerayo wixii saxan ee qaranku u qaado jihada saxda maanta waxaan markaa halkan kaga dhawaaqnay structure ama nidaam iyo maxaa la yiraahdaa sidii uu u dhismi lahaa madashaasi sidii ay u dhismi lahayd waxaanu go'aansanay in madashaasi ay yeelato gole sare iyo sidoo kale inay yeelato xoghayeyaasha oo secretariatka yani gole ay ku midaysan yihiin xoghayeyaashu iyo gole ay ku midaysan yihiin hoggaan midaysan oo sare hoggaanka midaysan ee sare wuxuu ka koobnaan doonaa xisbi kasta hoggaamiyihiisa ama qofka koowaad ee xisbiga hoggaamiya ee ugu sarreeya golaha xoghayeyaashuna wuxuu ka koobnaan doonaa xoghayeyaasha guud ee xisbi kasta ujeedada guudna waxay u tahay in la mideeyo forumyada ama kala duwan si ay u soo saaraan oo ay aragti midaysan u lahaadaan shirku wuxuu socon doonaa maxaa la yiraahdaa wuu sii socon doonaa ilaa inta uu ka gaarayo ujeedooyinkiisa waxaanu maanta markaa u magacawnay si arrintaa looga midho dhaliyo ummadda Soomaaliyeed ay u hesho meel aragtiyada laga maqlo oo laga fidiyo waxaanu maanta magacawnay afhayeen kumeel gaara oo ah xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur oo ku magac dheer Sanyare inuu noqdo afhayeenka madasha shirkan maanta markaa waxaan ugu talagalay kaliya inaan ku dhawaaqno forumkaas ama madashaas wixii dambe warar ah ee ka soo baxana waxaan idinla socodsiin doonaa kolba sidii loo qabto saxaafadda ula wadaagi doonaa ula yeeri doonaa waxaana lagala xiriiri doonaa safaaraddu ay la soo xiriiri kartaa Cabdilatiif oo garwadeen ka noqon doona forumka iyo xiriirka warbaahinta iyo wixii aanu soo saarnay in ummadda Soomaaliyeed lala wadaago sidoo kale coordinationkeeda iyo in isku dubaridkeeda ka noqon doona mas'uul marka intaasaan maanta isugu kin yeernay waa mahadsantihiin wixii su'aalaha waxaan u dhigan doonaa maalin kale insha Allah xisbiyada ugu waaweyn ee qaranka ka jira weeye maanta wax su'aalaha qaadan mayno waxaanu ka jawaabi doonaa su'aalaha shirkigu noo socdaa waa isku soo noqon doonaa oo uu noo socdaa berri oo kalena uu noo socon doonaa xildhibaan Cabdifataax oo faahfaahiyay waqtiyada dambe oo soo socda shirku waa socon doonaa waana idinkuna wad heli doontaan waxyaalaha shirka ka soo baxa macnaha shirkuna waa toosinta يعني himilada ummadeed ee loo socdo iyo ilaalinta dimuqraadiyadda iyo amniga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo federaaleynta horumarinteeda dabcan intaas way ku dhex wareegi doontaa waana heli doontaan maalin walba wixii soo baxa waa mahadsantahay